gumaysigii reer yurub intii aanu geeska afrika soo gaarin ee aan hubka qarxa ina soo gelin abaarihii soo noqnoqonayay boqolkii sano ee aynu soo dhaafnay intii aanay kala dhantaalin ugaarta jaadadkeeda waaweyn ee Soomaaliya muuska ka ahayd waxaa ka mid ahaa biciidka faa'iidooyin dhowra oo uu bulshada u lahaa dartood ayaa loo ugaarsan jiray mar hilibkiisa faraha badan awgiis ayay u ugaarsan jireen kaasoo kumbis iyo ood kacba ay ka dhigan jireen mar kale saantiisa darteed ayay u dilan jireen si farshaxanimo ku dhan tahay intay u farsameeyaan ayay ka samaysan jireen xarga adag oo aqalada ay ku dhistaan iyo kuwa dhaan iyo geediba ay rarka awrta u adeegsan jireen isla saantaas ayay haddana waxay ka samaysan jireen qoofallada fardaha lagu qoob xiro oo inay ka fakadaan ama ka fogaadaan uu ninkalihi kaga gaashaaman jiray sidoo kale geesihiisa dheerdheer ee toostoosanna dhowr hawlood ayay ku fushan jireen xilliyada colaaduhu aloosan yihiin ayay ka dhigan jireen buun dhiilada la isku ogeysiiyo la isugu qayshado laguna ciidan urursado mar kale dumarka Soomaalida ayaa ku qoran jiray godadka udbaha la geliyo marka inta meel la dego ay aqalada dhisanayaan mar saddexaadna daabka amleyda ayay ka samaysan jireen sida ugaarta arabkeedu yahay aalaaba raxan ayuu biciidku isu raacaa una daaqaa wuxuu ka mid yahay ugaarta ay Soomaalidu xoogga dheeraadka ah ku tilmaanto gaar ahaan saryanka oo ah magaca kiisa labi uu gooni u leeyahay isagaas ayaa lagu sheegaa in cawska iyo biyahaba uu aad u jeclaan jiray ha yeeshee markuu isla heli waayey uu midkood iska iimaansaday kii kalena markuu heli karo oo qura u hanqaltaagay waxaa haddaba jirta hees ka mida kuwii ay lo'da ugu heesi jireen taasoo wax inooga sheegaysa dhaqanka biciidka inaha ay Soomaalidu ka baratay wax ka mid ah xoolo-raacatada Soomaalidu siday u warhayso jiilaalka markay tahay waxaa badanaa kala fogaada ceesha oo ah markuu kalkoodu soo galo halka xoolaha loo arooriyo iyo carshinta oo ah dhulka ay u foofaan ee uu daaqu ugu yaal taasina meesiyada oo idil inkastoo aanay u wanaagsanayn haddana waxay ugu sii daran tahay lo'da oo ka tirsan xoolaha la dhaqdo qaybtooda nugulka loo yaqaan sida geela muddo dheer biyaha kama maarmi karto wax qumanna cawska kama ooli karto oo hadday weydo codkeeda iyo candhadeedaba waa laga gartaa xilli haddaba jiilaal dheer lagu jiro ayay lo'dii aad uga durugtay ceelashii laga waraabin jiray lo'olaydii lahayd ayaa ula kacday ruuman uu roobkii gugu ku dambeeyey oo tigaad wacani ay weli ku tiil maalintii dambe ayaa nin lo'olaydaas ka mid ahay wuxuu milicsaday sac uu lahaayoo cawskii jiilaalka ka dhergay ha yeeshee oon daraaddiis geedaha sanka la raacaya hooska geedahana midba mid uga gudbaaya wuxuu ahaa saddex qad isaga iyo lo'dii uu ku jiray caawa fiidkii la aroorin doono habeenbarkii meel hebla lagu guulin doono berri barqadiina ceelka laga shubi doono barbaarkii lahaa ayaa sacii u fiirsaday markaas bay la noqotay in neefku jeclaan lahaa daaqa iyo ceelku inay isugu dhow yihiinoo gelinka hore uu cawska caloosha ka buuxsado gelinka dambana uu biyaha ka durduurto waase tii la yidhi adduunma dhammi buu dhashaye goormaha wixii la jeclaadaba la wada heli jiray waa waana si kastaba ha ahaatee lo jirkii dambaabi jiray ayaa wuxuu doonay inuu saca u caqli celiyo suu wuxuu u tiriyey hees gaabanoo uu ku xusuusinayo biciidka oo tabtiisa oo kale u jeclaan jiray in daaqa iyo biyuhu ay isu saaran yihiin wuxuu caws jacayl ka qabo meel aaf ah oo aan cidoodka kale la wadaagin ayuu had iyo jeer u daaq doontaa biyuhu kolkay ka fogaadaanna dhalanteed walba kuma qamaamee wuu iska dulqaataa tan iyo inta roob ka da'ayo oo ballida waran uu agihiisa ku arkayo dabadeed lo jirkii oo malaha rabi lahaa
lo'duna inay biciidka ku dayato oo biyo jacaylka ay iska dayso ayaa sacii wuxuu ugu heesay bur dareema ah oo balli agtiya baadi doonyo biciidkuba waa. guud ahaan biciidku abaaraha wuu ka doogaa, wuxuu ku jiraa duurjoogta kuwa ugu adkaysiga badan. sidaa darteedna abaartii uu wax ku noqdo ama uu ku baktiyaa waa tu aad u qoob culusoo dad iyo duunyaba in lagu dhammaadaa ay xagga eebbe ka qoran tahay. bilowgii 1950nadii ayaa ismaaciil mire wuxuu tiriyey gabay aad u caanbaxay oo guuguule ay soomaalidu u taqaan, kaasoo uu si wacan ugu tilmaamay abaar aad u kululaydoo duurjoog iyo dabjoogba xoolihii oo idili ay aad ugu naafteen. qayb gabaygaa ka mid ah oo saryankii xoogga badnaa ee goonidaaqa ahaa oo xaalkiisa kaga dayrinayo ayuu ku yidhi gumburigii barbaa joogsaday iyo goroyo cawshiiye saryankii garbaha weyn lahaa goob ka kici waaye wuxuu goonidaaqii habsaday gubadadii hawde. soomaalidu hore siday qabtay waxaa jirta sabab aan ahayn jacaylka cawska oo saryanku uu la fogaado meel raxantiisa ka baxsanna uu ugu daaq tago. waxay ku tilmaami jireen inuu yahay wax dhiifoonoo xabadda baydariga iska ilaalin og. taasina waxay sababtay inay goonidaaq ku naanaysaan iyada oo fulaynimo loo qarinayo. si ay haddaba u muujiso tilmaanta fulaynimo ee biciidka lagu sheego, waxay soomaalidu hore ku sheekayn jireen in beri su'aal la weydiiyey laguna yidhi biciidow cidi kaama xoog badna oo cidi dhinacaaga dhulka ma dhigi karto. waxaa kuu weheliya oo eebbaweyna kugu galladay geesahan dherarkooda la yaabay ee wax walba aad ku aa'i kartee maxaa kuugu wacanoo bidhaantii kuu muuqataba aad uga carartaa. markaas buu sida la yidhi wuxuu ku jawaabay inta dhogortaadu dhan tahay yaa la dhowrsadaa, oo gadaalkii noqotay mahmaah wax lagu tusaaleeyo laguna waaniyo kolba ruuxii loo filo inuu yahay jal iska xoor aan badbaadada naftiisu u muuqan, farahana kula jira falal uu berri ka maalin eedi karo. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamida hadduu eebba idmo.